السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واد السلام يا مركو وجوه الرئيسة ومع مليون ظلمي قيل كالله سميه برنامج كان حلا دها ظلمي قيل كالله سميه لدها ظلمي قيل كالله سميه مقعد شيخ عبد الحكيم عثمان نور شيخ صومالي نيجا قرابية مكانك أنا قلت للأنت كي توريك أطوعي يجب صوّا هذا why you harass me ما تقارنا إلا تاني فاتيو ما تقارنا فاتيو you fucking bitch باتا I am كاهلي حكاية بيوتيوب تنبين وقلت عليه مليون نو كاليفورنيا جوغاوات حقوصة بعلمك انت من يابل السيمانة يعوش ربع حلوة الصدى مكتا ايه مليون anything else كيخو anything else dulmiga dadka aad ku qabataan ama dadka dulmiga lagu sameeyo qofkii sameeyay hadduu iloobo qofkii lagu sameeyay ma iloobay yes or no maalinta waxaan la igu samaynayo gabar Soomaaliyeed baan ahaa kow la dulmay diintii baa isaan ka yeeshay kanay waxaysay ilaahay ka cabsa diintaada u noqo okay diinta ilaahay baa iska leh laakiin dulmiga la igu hayo bardhagaysta okay iyada kiniisada ugu weyn Amerika tag yurtum kan ma fishay mariyo deeqa bacda mariyo deeqa حتى إذا كبرت مقعد شيخ عبد الحكيم عثمان نور شيخ صومالي نيجا قرابية الشيخ مكانك أنا قلت للأنت كي توريك أطوعي يجب صوّا هذا why you harass me ما تقارنا إلا تاني فاتيو ما تقارنا فاتيو you fucking bitch باتا I am كاهلي حكاية بيوتيوب تنبين وقلت عليه مليون نو كاليفورنيا جوغاوات حقوصة بعلمك انت من يابل السيمانة يعوش ربع حلوة الصدى مكتا ايه مليون anything else كيخو anything else اوكي iyada kiniisada ugu weyn Amerika tag yurtum ma lagu soo celinayo wallahi la lagu soo celinayo wallahi anything else haye maxaa kaloo taan ku jira itu sharmuuta ta you fucking bitch bata istibla bata hadda itu haye wala and what is your name my name is Abdul Hakim Ismail Noor Sheikh Somali Helso hotel baa ku jira waa kan numberku kuu soo baxay waxaan imaanayaa dariibta magaalada Minneapolis saacaddu markay tahay sagaalka fiidnimo sagaalkii markaan imaanayaa Minneapolis youtube-na anaa kaa helay waxaana joogaa heerku waa darkii hotel aan ku jiro waa kan numberkiisa kuu soo baxay anything else مليون دقيقة تيجي ما شبعها تري أنا كاحل يوتيوب إله ما تدري ترياني أقدر والله إذا يوتيوب لو سوتين والله أصلا والله إذا لو سوتين ترى من ديار الراعي ولا قم بسرعة وأقول ما تنفع من لو سوتين حكي يعني anything else مليون دقيقة don't call my number okay مليون don't call my number okay don't call me okay every time every second minute why you fucking bitch every second minute I call you on right now every second minute please okay maxaad ugu samayn kartaa magaaladii baan kaa rabay youtube baan kaa helay yaa iga kaa celinaya milyuunay yaa iga kaa dadbaad leedahay dadani aad leedahay ma jirto
Okay. Maliyun. Okay. Anything else? Are you still Yeah, ikor gare. are you still hungry to harassment me? Later. Na aamus aw ku yaarahay maxaad kalooyid oo diinta uga baxad oo dib aad usoo xiirata. It's not your business. YouTube lagu soo daayay diinta ka baxay ku tee xaaraan bay ka tahay dalyuunay diyaaradan dadka u raacay dalyuunay diyaaradan dadka u raacay I don't care. ay gacan iyo soo dalkan ku jiray inta sharmuutada kaxdada oo tuugada xaraamiyada dadkii kuwaalay wax ku qabtaan maanta. Anything else? You done? dadka ka soo waxay waa heerta hotel weeye call me this number hotelka ka ku jira page okay ya may police ka ku jira I don't care. I don't want to call you. I don't want to call you. Yes. Million deqay. Maanta min English ay tahay. Aad ka waxay police la macdado. Yaa qaaday birta xana. Afala. La ya, ayay digo. That is not my name. That is not my name. I have a name. Your name Million Hari. Digo, Sharato. Anything else? Anything else? Who's gonna pay your rent? Today, $20 $5,000 and I go consider it. $5,000 and put less than 5 days, $8,000 and Okay. intaas iyo darkada jabka ku jira ilo sharmuto maanta bagaawaysi wallahi billahi tallahi saaka markii laga xiriyay wallahi billahi tallahi office-kan ku jira waa dhex taagnaa ilo Okay. Are you still need harassment me? ilaahayow ma booliiska meesha kusuudi ilaa tahay Okay. Anything else? Anything else? Not you fucking bitch, bata. Oh, bakale. Na aslimada ilmu booliis tashka arsala oranta YouTube la yaru oo isawteeka. Nobody ka caawin kara. Nobody ka caawin kara. I know the law. I know the sharci. I know the rule. Very good. Iska baan. Nin jeebkiis buuxan waa ayaa la socda. Hay, iskor kale. You take SSI, right? Kaaga uraya SIA now waxaan ku dhahay 10 sano wallahi inaad shaqayn karin karayo 10 sano ma shaqayn karin. Okay. Okay. Are you done? That's good. Or you still need hungry? aniga dooban waxay ka qaaday na sarau kaaji sara matana saranu kaaji number waxay ka qaaday. Okay. Okay. Police station YouTube ka laga xidhay waa taxasina tayo ku garto yahay markay ku kala kacday inay si aan dibay ee lagu bartay everyday hadaake maxaa ka raacay zaka barada ma tuurtay zaka alla maqlay. You know that I'm not a Muslim? Yeah. I'm not a Muslim. I'm not a Muslim. Yes. I am not. I'm not a Muslim. Don't harass me. You fucking bitch, bata.
Okay. نعرفت العيد ما كسي العاصمة هذا ما أنت العاصمة هذا في عدد بوليس السجين تبتدي طريقة واحد هذا إنت كيف حي I did already. I did. I am not Muslim anymore. No more. I am Christian. يا رب على الدين تعيش يا رب على Somali man. سؤال من وحكم مصر الناظري وحكم من اسمي عبد الحكيم عثمان نور from Minneapolis Minnesota حتى شيخ صومالي يا وحاجة عليك رفضها وكاك أتبعنا إلا Are you shot my son? Are you shot my son? ناشر موتا تايرويل كان مصوتي القول بوهجانة وحنا أرجع لقوا يا بنتي طويلة لكن القول بوهجانة دلوقتي شفتوا كيف ما توا ولا حد ما هو يسا بوليس نعم لماذا البوليس تشبه هذا الدين تراكم بعد الله تمحى كسو قلتونا قرال مات Okay, good for you. Do with whatever you like. But this is phone number. It's my phone. Don't call me. This is phone harassment. Don't call me. You call me 10 times. I don't care. I don't care. This is my number. Don't call me. Don't call me. Stop harassment. Stop harassment to me. Stop. Stop. Stop harassing me. Stop harassment to me. Don't call my number. Don't call my number. Don't call my number. Don't call my number. This is my phone number. You harassment me day and night. You call me date and night. Don't call me my number. Don't harassment me. Stop harassment to me. مليون إلى جيتك على الشريعة عشان بقول كثير يا جيتي بعد تسعة الله حد. I am not a Muslim. Yes, I am not. I am Christian. I'm not a Muslim. Please stop calling my number. Stop calling my number. I am not a Muslim. I'm telling you, don't harass my phone. Okay? Don't call me back my number. Okay. Ninka saa ii caynaya ee saa ii haraasman garaynaya ee saa ii dulmaya bay gabar Soomaaliyeed intay live soo gelisay bay waxay leedahay walaashaa baan ahay marka hore intaanan dhaafinin inuu i caayo kana hoohe waa half brotherkii okay maxaa meeshaan rabaa inaa idinka tuso marka hano gabadha la dhaho waa gabar Soomaaliyeed waa gabar social mediaha ku jirta waa dadka ku raaxaysanayay dulmiga iyo dhibaatada laygu hayo haddaysan ahayna way ka hadli lahayd ninka saa ii caayay ee aan social mediaha soo dhigay cayahan iyo cayo ka badan oo kalena aan dadka soo dhigaysiiyey qora ama ma ii soo qora alaabad u sheegaya okay waa lagu maqlaa cabdixakiin hore u soco waa lagu maqlaa waana lagu arkaa okay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd dhammaan ummadda Soomaaliyeed imaashku maanta waxaa lagu salaamay salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو عبد الحكيم عثمان وركم على الشيخ الصومالي حرز فيها مجال المنيابس قبل كم من الصوت.
waxaan horta u mahadcelinayaa waan halkan uga mahadcelinayaa walaashay Hana Abubakar iyo gabadh iyadana aan madeernahay Leila Bowsiya Barret Digaag oo iga soo wacay maanta oo wadanka Ingiriiska ay ka wada joogaan gabdhuhu waxay lahayd almost waqti aad u badan maalmaha aad u badan oo ay raadinayeen qayb baan isku weynay waxay ii soo waceen wanaag iyo walaalnimo iyo islaax in ay sameeyaan ilaahay khayr ka siiyo dadka waxaa ugu khayr badan qofka qof dad isqabtay dhexaadii marka horta aad uga mahadnaqaya gabdhaha walaaladii waxaan rabaa inaan maanta bulshada Soomaaliyeed aan halkan uga caddeeyo anigoo Cabdixakiin Cismaan Nuur kuma dhashay Soomaali wax kasta oo ay gabdhahaas walaaladii maanta iga codsadeen Hana Abubakar iyo Bowsiya Barret Digaag هذا بهانك iga codsadeen oo ugu horeyso إني بالكادجات أموين Hana Abubakar iyo Bowsiya way soo waceen si fiican baan wada hadal اوكي هوري وسع صاري قدك ايغا هلا هوري وسع shacabka Soomaaliyeed Hana Abubakar ay maqaad ka tahay ayaa ay ka socotay social media هيا aniga iyo maamadani عبد الحكيم عدك ما مخلق عبد الحكيم عدك ما مخلق سوق 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 عدك سووا قاي والضمر اوكي نعاي تماي ماشي وما سي جريسان انا اول بلوك ذم ها قف عيتماي ماشي حتى انا مالي مخلق وانك سانو قاو عيتماي اوكي عايت انت السوق دفاعي ولا اسكبح مره عاي waxay difaacaysaa dadka soo qoraya dadka cayda u soo qoraya oo caydiisa shala dhageystay because ayadu caydiisa inuu icaayo way ku raaxaysanaysa laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaan rabaa inaan idiin sheego dulmiga la isku hayo ee dadka lagu hayo inuu yahay mid aad u xanuun badan laakiin adigoo gabar Soomaaliyeed ah ama hooyo Soomaaliyeed ah marka ay hooyo Soomaaliyeed oo kale oo adoo lagu dhibay ku fiiriso because waxay ku degtay guriga naagaha umooyinka gurigahooday ku degtay so tiibaa waxay kaliftay in ay mataqaanaayeeto waxay kaliftay in ay aniga igu duudsiiso ayadoo arkaysay shalayto in la imaagayay ama la icaynayay gabadh Soomaaliyeed baad bartaan xaq ku aragtaa okay walaalkay Cabdi Xakiin sida islaamnimada ku jirta Soomaalinimada ku jirta ee Bowsiya markay ooysay ugu damqaday Bowsiya waa naag dhulbaanta caydeeda ku raaxaysan jirtay uma malaynay Cabdi Xakiin anigu waxaan aqaanaa since 2008 wuxuu igu dhahay Hana balana qaadaya asaa hadlaya asaan sugaya ilaa qoraalkiisu ka soo galo Bowsiya sugayna inta ka soo bad adiga iyo qoraalkaaga Soomaaliyeed ma qaar wanaag dumarku ma qaban karo way laakiin I cannot connected ayaga dumarka kala dulma Cabdi Xakiin hore u soco waa lagu maqlaa waana lagu arkaa okay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd dhammaan Soomaaliyeed meesha ku dhammaantii waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh
وانكي لها دلو يشرمو على الشيخ الصومالي حرز شيخة مجالة منيابلس قبل كم نصاب waxaan horta u mahad celinayaa waan halkan uga mahad celinayaa walaashay hana abu kar iyo gabadh iyadana aan maadanahay leela Bowsiya Barre Digaag oo iga soo wacay maanta oo wadanka Ingiriiska ay ka wada joogaan gabdhuhu waxay leedahay almost waqti aad u badan maalmaha aad u badan oo ay raadinayeen qayb baan isku weynay waxay soo waceen wanaag iyo walaalnimo iyo islaax in ay sameeyaan ilaahay khayr ka siiyo ilaahay khayr ka siiyo khayr badan qofka qof dad qabtay dhexaadi marka horta aad uga mahadnaqayaa gabdhaha walaaladii waxaan rabaa inaan maanta bulshada Soomaaliyeed aan halkan uga cadeeyo anigoo Cabdixakiin Cusmaan Nuur kuma yahay sheekh Soomaali wax kasta oo ay gabdhahaas walaaladay maanta iga codsadeen ana Abuukar iyo Bowsiya Barre Digaag wax kasta oo iga codsadeen oo ugu horeyso maama malyoon arrinteeda in aan dibadda uga hadlin waxaan ballan qaadayaa kasan ka ballan qaaday inaan ilaahay la hortagayo inaan fulinayo oo ugu wallaahaya ilaahay 99 magaca Allah ku dhaaranayo inaan xumaan iyo samaan midna aan ku darsan waxay ugu horeeyay oo arkay waa ana Abuukar iyo Bowsiya Barre way soo waceen every single time waa soo gelinaya okay hore u soo sare dadka iga hadla hore u soo maxay tirteen shacabka Soomaaliyeed ana Abuukar lahay marxad ka tahay albaabka Bowsiya ayaa ay ka socotay social media haya aniga iyo maamadani Cabdixakiin codkaaga ma maqlo Cabdixakiin codkaaga ma maqlo sug soo codkiisa wuu go'ay ummadaas ka qayb qaato waliba aan si marxaati uga qayb qaato oo marxaati u yaalo hadi Abuukar aad marxaati ka noqonaysa أنا أسوي توصله 700 بنقاط. gabar inaad eertaya waa gabar Soomaaliyeed waa gabaran magaalada deganay run ahaantu dun badan baa dhacay iyada ilaahay la hortaysa laakiin aniga maanta saamix bay iga tahay afis ayay iga tahay anigu maanta wax kasta igu gashay waan cafi waxaan adin ballan qaadayaa walaashii hani iyo Bowsiya in aan ballantaas aan dib dambe uga noqon doono walaagaadi socdayna labadiina ilaahay khayr idinka siiyo ballantaasina waa mid soconaysa naagaha dhageysanaya qodbadiisa way dhageysteen caydiisa way maqlayeen labadii sano waxay raalli ka ahaayeen naagta la leeyahay Bowsiya waa naagta umooyinka qolalka ugu jirta nimanka tafaha gaaban ee gararka dhaardheer waa naagta qolalkooda ku jirta social media markaan soo galay ayman miyaa la dhahaa something baa la dhahaa kow laakiin waxaan idiin sheegayaa waa naagta kow markaan social media soo galay dadkii igu soo yaacay oo dadka iyaga qolka iyaga ku jiraana kaa weydiistay lahaa weeye markii aan ka hadlay mataqaanaayey to sheekh Cabdiraxmaan baa igu yiri social media ka baxna akhwaan oo dhan futada isku hayaan waagaasay waxay bilowday in ay maaragtay aysan waxba dambe iguma darsan aniguna qolada inaan ka hadlo diyaar uma ahayn hadda markay aragtay in wax walba well done dheheen YouTube-kayga la xiray ayla ii dhaadhaamiyey dadka si bood gareeya ninkaani waa nimanka gararka dhaadheer ee la yiraahdo akhwaanul muslimiin anigu aan akhwaanu shaydaanka waqaano waa nimankaas ama daacish ha sheegteen ama akhwaanul muslimiin ha sheegteen nimanka gararka dhaadheer leh ee saraawiisha gaagaabsada ee munaafiqiinta ah ee aan muslimka ahayn ee aan ilaahay aqoonin ee dumarka ku mashquula ninkan bilaa akhlaaqda ah iyo naagaha maanawiftooyinka waxa wata waa ninkan dhageysta marka naagta aniga lafteeda walaal fikran baan ahaa intaad arkaysi boqol magac la ismaysay curyaaniba igu caysay dadba u sacad maxay baa curyaaniba dadka Soomaalida aqoonta sheegina waa dadka aad aragtaan Photoshop ka sameeyay marka walaal ka caysay aniga taasna Photoshop buu sameeyay ku leeyahay masawirka uu leeyahay uu dadku eedeynayo wuxuu eedeynayo waa Cabdinaasir Soolo oo uu gabadhiisa social media 9 jirka oo social media ku caynayay oo babyga ah kow
masawirkan gabdha dhulbahanta abaa sameeyey ninkaani horay wuxuu u soo cunay wixii gabar dhulbahanta Minnesota joogtay ina Khaliif Gallayr okay ilma qaadi okay Puntlander midaan hadda la dhaho waa miduu maali tuura u soo bixin jiray okay walaasheed hooyadeed okay gabar mataqaanaa gabadhan miyi iyo magaalo la dhaho okay kow male laba male gabar dhulbahante oo dhuuxeeda qori la gasho oo magaalada state Minnesota ku nool oo uusan soo cuninin madax iyo calool horta lama arko kulligood hore u soo caliyay gabadhii ugu horeysay oo reero kala ahna anigay ahayd aniguna gabar markii dambe aan ogaaday inay dhulbahanto tahay asagoo caynayaan waxaan ku yiri war gabadha cayda ka daa waa gabadhii oo haayo ninka cadaanka ah intay reero midhaa kala dhex gashay ninka cadaanka ah dilay oo surka ka jabtay ayadoo kooma ku jirto social media ku caayay dhiigu caynayay ama cawradu suuqa shalay la fadhiyay waa kuwa maanta Stockholm syndrome-ka u haysto midda kale Photoshop buu iga sameeyay masawirka uu leeyahay yaa sameeyay Puntlanderta asaga hadda saaxiibka la ah barigu iscaayi jireen oo isdili jireen oo iscuni jireen ayaga sameeyay ayada iyo walaasheed Samsam basawirkan libstiga la sameeyay ninka la yiraahdo Solana de face wuxuu kala baxay social media uu kala baxa kow Solana nin edab daran ama sameeyay waxaas ma ahan asaga gabdhahooda caayi jiray asaga gabdhahooda ilmaha ku qabsaday ninkaani gabdhihii dhulbahantu soo cuna laakiin anigu ama gabdhihii dhulbahantaa noqon soo shalay iguma inaan cayrsanaynin oo diintii bay ka baxday ama gabdhihii dhulbahante baan noqon oo suuqa ku caayayay aabayaashoodna macatabka uu xiraayay qaadi oo professor ah oo jaamacadda la foolay intaasoo arday soo aflixiyay ninkii macatabka ugu xiri jiray social media ninkaanu ahaa kow bad ama waxaa noqon gabdhihii dhulbahante ee ilmaha uurkooda ku jira ayagoo raqaba uu kala inta ka gaday uurka markay yeesheen uu yiri ilmaha anaa dhalay si loo soo saaro inaan ninka qaba ilmaha dhalinin intuu gaarsiiyay damage buu ama u dul qaadan doona oo anigu kuwaas oo kala noqon doona ama wala inaana noqonin kuwaas laakiin waxa idin sheegaya kuwaas inaana noqonaynin baa igu walaahiya oo igu bilaahiya oo igu tallaahaya laakiin waxaan u sheegayaa hano oo gabara oo shalay lahayd aniga la caayi jiray oo aniga social media ku jiri jiray oo aniga la idulmi jiray lahayd baa waxay u soo fariisatay intaas in la maama milyan bay meeshan ka leedahay ayadaa dadka dhihi jiray bay tiri dadka ha caayin baan dhihi jiray soo hana waxay salka ku haysaa oo saaxiib la tahay nin dadkan ku xiran oo aad wada taqaanaan kow ma fahantay soo waxaan rabaa inaan idiin sheego aniga nin wax kasta ha igu sameeyo ha i xumeeyo laakiin gabar Soomaaliyeed inay naag qabyaalad inta loogu keeno ay tiraahdo aniga inay maaragtay xaqirto hameenimadii ka horeysana inta isoo waxday ayadiyo naagta foosiye leeyay baan labadaba waxaan ku iri haddaad shalay ka guban weydeen dhibkii la igu hayay maxaad wiilkayga markii la dilay uga guban weydeen maya ma maqal bay tiri naagta dhulbahante ee hadda foosiye ee wadata hano marka hano waa tana maxaa lagu dhaha horta waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay dadka cayda soo qoraan caawa block baan ku qabanayaa waxaa loo baloogayaa ninka eemis caayay weeyaan lagu caytama taga kusoo caytama beeshkan waxbaa lagu xaliyaa ummada lagu gargaaraa Soomaali baa lagu caawiyaa wanaag haddaad ku dhibaayo wanaag inaa qortid ilma adeerayaalo iska baxo this is gargaar ma raba beeshkayga anaa iskale qof qabri ila gelaya ma jirto qof anigu jannada igelinaya ma jirto qof anigu igelinaya naarta ma jirto 2 mitir ee qabriga isugaysa cid iraacaysa barigeeda aad cunaysid baa jannada ku you're not welcome my Facebook page
aanaysanina u duceeya wardan boo Soomaali oo Facebook intay soo furista lacaynay hadda arka wallahi inaan ka aamus العالمين ilaahay kaama waxay ii noqotay inuu mara afis hana please wait maxaa yes nimanka dhageyso anigana codkayga isku day inaad ilaalisaan nacam ana xalay dhawaan ka weyii maanta markaan cabdi la hadlay naagta shaqada iska dhageyso ha shali maxaad ii qabateen waxba ma qabanin waa run labada kalimada labadina ugu badan gobolka Minnesota degan siyaasiyiin aqoonyahan Soomaaliyeed gobolkan ka yahay iyo dadka degan oo dhan marka rumaantii muddo waad nala joogtay nacam oo anigu hadda community-ga u qabsoomi waayo ama aan dadkayga u qabsoomi waayo daayarka waxa ma dhaafo nacam marka sida adiga maanta London wadan iga fog jooga aan kugu qabsoomi alla qofka daqaysan caytada soo qoraya waa ku blogarayna mar dambe hadda dambi marrabo 2 mitir qabri caawina noolanayo yaa noolaan oo ku jecelnahay meel aan kaaga harayna malaha meel aan kaaga harayna malaha waa ogahay shalay markaan noo baahnad waa kaa jiifanay laakiin waxay noogu qaadatay homework qof dambe oo Soomaali la dhimay inaan ka aamusadeen maalinba 10 baa lagu bartaa maamuliyun aan ku waana qaadana ugu badan gobolka ha marka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa marka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa Fawziyo khayr Allah ku siiya in hortaada iftiin reeraha ayaga aad soo wac عليكم Fawziyo ummadda Soomaaliyeed ee ku dhageysanaysa ama ku maqli doonto codkaaga horta aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sida juhdiga iyo waqtiga iyo xalay inta ogaantay oo milyan aan wacnay oo aan ka soo baxnay hadalkii ay itiraahday ayaa meel iga dhaawacmay meel buu iga taabtay touch me marka igu tiraahday maxaad shalay wax igu qaban weydeen ayay inta wax run bay ii sheegtay runta qofka marka loo sheegana ha shalay maxaad ii qabateen waxba ma qabanin waa run labada kalimada labadina ka seexawayna xalay ha marka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa marka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa Fawziyo khayr Allah ku siiya in hortaada iftiin gadaashaada iftiin ummadda Soomaaliyeed waxay ku leeyihiin thank you Fawziya la'aanta waxa ma qaban lahayn Ilaahay ka sokow idinkana la'aantiin waxa ma qaban lahayn maandeeq waa mahadsan tahay in tiyaada kale waxaan idin sheegaa ummadda Soomaaliyeed dadka beeshkayga meesha lagu macay Mama Leonay مي مقشة حبيبي ساعتها حبيبي وبين ماكو مقنع معان ساعتها وفي عنا هاي والله ما مليون حالي إري قلت له هذه نبر يقول نقضي النبر وانا إري صحة قلت له هذه كامة بسكوت قال كسي قال كدير قرسي كامة بسكوت قردر ولا قردرين هاي maxay horta soo dhiyay waan ku jecelnahay ummadda Soomaaliyeed dhanba ku jecel annaga dhana ku jecel waa munaafiqiin waxa igu tiraahday ahaanooy annaga in ma ku soo qaban kara ma ku soo qaban kara ma ku soo waca at least waa ku soo waca amalin qadka markaan ka bixi aan ku soo waco walaalkay macaan qofka ii soo qaba marka waxaan ku sheega waxa waayo gar iyo gardaro waa laga gardaran yahay qof dumara tahay shalay waxay ahayd inaan ku dhageysto wallahi wali wax kama shalay laakiin waa ka shalay laakiin arintaada waxay ii noqotay waaya arag indhaha ii furmay maxay horta soo waran hadda ku hadlay Soomaaliyeed ee Facebook lagu caynaya jinni alla kugu beenley tika amustamihi waran jinni alla kugu taab waa munaafiqad ma fahantay
waxayna waxay waaba fiican tahay but at the same time wax fiican bay ii noqotay in uu khaladka aan dhaca because waxa waaga ii baryay at the other side waa wax xun oo ma fiicno wixii laakiin anigu hana ahaan waxay ii noqotay inuu waaga igugu baryay oo aan habaariya iyago dhan waa habaariya wayti jinni alla kugu taag marka aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan kaaga mahadcelinay horta waqtigaaga qaaliga ay siisay wixii dhaceen waa dhaceen hadda waxaan taaganahay cabdixakiin caawa ummadii soomaaliyeed ayuu ballan qaaday hore ballamaha dad ka soo qaaday iyo haddii kale asay u taalaa anigu iima taalo anigu hadda waxa ii taala qofka dawey uu anigu igula hadla qowlka ani asaga aan ku wada hadalnay ayaan anigu kasoo qabtaa wuu dhahay iyo hadda ka hor u dhihi jiray iyo wax badan buu sameeyay commentka ii soo qoray anigu micno iima samaynayso dadka kale wuxuu ugu soo sheekay dadka kale lahana layma dhaha anigu dadka kale hana lama dhaha anigu hana lay dhaha shalay waxa ii soo diraysay message ay leedahay diyaarad baan kuu soo tigir baan kuu soo dirayaa ingiriiska igu imo halkan intaan joogno kala nala joog kan adduunka ilaahay anigu inaanan follower ahayn horeysa idinkuma sheegin on leader ahay sorry asaga waxaan ku wada hadalnay caaway qoran tahay baal bay galaysaa taariikhda Soomaaliya galaysaa ummadda Soomaalidana daawan doonta wuuna ku jiri doonaa Facebook-gayga marka waxaan adigu ka codsanayaa cabdixakiina waxa iga ballan qaaday wax walba aad samaysid tomorrow xitaa hadda u soo fariisatid oo aacaysid inuu ammaanka ku sii kitaab ayuu gacanta ku maray uu noo dhaartay wuxuu kitaab gacanta ku maray uu noo ballan qaaday wallaahi oo billahi oo tan la qofka ku dhay qofka aamini way ayaa ka darama milyan marka adiguna meel fog ma jirtid waa lagu ciilay waa lagu xumeeyay waa laga garmaay wax walba lagu sameeyay waxaan anigu aan ka xumahay anigu hana ahaan oo anigu I feel guilty maanta saacadda hadda la cilin karo oo cilin karo wax badan anigu Facebook oo ku soo furiso kula hadlo waxaan kula milyan adigu caayda istaaji anigu wax fudud baan u qaatay haddaan ogahay hawshan saan inay u culushahay والله كم دافتين مال بسوشيال ميديا أنت كوسو فريستو أو أن كوسو عزم أو نبض هذا كسبة إنه شكل هالكن كارثة والله لا دقدق والنف لكن وحي يقول نقطي ويا أرك جوردن بقصوم فيسبوك اللي عينا ما دعيدونت واكنا تي ما دقاونا فيسبوك السوق شو حرة أطهي ما ده حما إذنك ما إذنك ما إلهي بقى تهين إذنك بس إلهي بقى إذنك كوحكتين بس الدين تبقى كحكتين وماي عمدوي يالو النار واتنوكله gabar dambe ee Facebook lagu cayn doona ma jirayso gabar dambe anigu dhinaca dagaalka ka galaa been ma idin sheegay heerkan dadka waxa gaarsi waa Soomaalida hadana la iska qabanina faa'iido kale ma lihidin waa in la iska keen qabta oo runta la idin sheega maalin walba horta aan laabta Sheekh Abdiraxmaan Sheekh Muxiidiin Shaacil wadaad lahay idin soo fariisiina ayada xabada ma taqaanaa alf yaba ma taqaan isjeed sida xataa loo isjeedo ma taqaan marka waxaan ku sheegaa waxa waaye xir iisu dambe soo qor marka waxaan ku sheegaa waxa waaye umada Soomaaliyeed dadkii ka gubanayay dhibaatadayda bay balogaysaa dadban balog ku aruurnaya umada Soomaaliyeed way ku jeceshahay anagu waan ku jecelnahay ma fahantay dadkii jeclaayo leh waxaas leelmeynay balogaysaa marka waa idila hadalkayga ku soo gaabinaya cabdixakiin dambe ammaanku ku siiyay cabdixakiin hadduu kula hadlahanaa kula hadashay intaas anigu aan ku wadaa هاي هذا كأديك أسكله. أرد أنا أبتحكي ما قانع مدحي على البان وقانا كوده. هاي. وأنت كمرة وراجنا كمرة وأنك ويل كي يقدري كوده. إذا جيسو أفضل كي إذا جيسو. هاي وأكو بس في أنا كوده جيسنو يا. أنيقا وأنكي ويل كي يقدري كو وأنكي كود أنت أركتي أو عين إلها. rag baana ku shaqaysanayay anigana Cabdixakiin ama madax iyo calool habakaad u taqaanid waxba ima yeelinin nimanka garanka dheer leh ee tuugta ah ee masaajida ku jira ee garanka dheer ee saraawiisha gaaban nimankaas weeye ko waxaan looga hadlinin maalintii aan lahaa wiilkayga la dilay intaanan dhiman waa dhergaya aan lahaabay Soomaali ka hadli lahaa maantana waxaan ku sheegay ya horta dadka muslimka inaan ku soo noqdo ha u fadhiinina
ilaa aan CNN tago ilaa ay adduun weynuhu i maqlaan waxa dhacay ilaa hadalkaygu meel gaaro horta inaan soo noqonayo ha u malaynina markay youtube-kayga xireen ee ay wax walba igu sameeyeen ee ay isleeyihiin guul baad gaarteen in aan anigu easy inta usoo fariisto okay aan dhaho never ever never ever dulmigana raalli ha ka noqonin naagta xala kula joogtana dhulbahantanimo iyo dhiig baa qaaday waana naagaha akhwaanka mataqaanaa waa midda hadda telefoonkan iskale ummada sheegta waa naagaha akhwaanka ma fahantay shadaadiin weeye imana matalaan waxna igama qaban karto hadday qaraabo la tahay oo asaga war ay maanta ka yeelayso intii social media la igu caayayay maxay waata hadda aayadda la soo fariisanaysee kugu gubatayda aayaddu mar dambana hay soo wicinina lifekaagana haddaan ka dhacayaa madax iyo caloolna waa madax iyo calool howdhe ilaa youtube-kaygii la soo celiyana anigu soomaali waxaan idinkala hadlaayaabay waa ku damiyey waajibkoodii baa mariyey abaalkoodii baa ka waraabiyey ilaahay agtiis waxba lama aha ilaahay maba taqaanay qulubtooda inuu idhagayso ilaahay qulubtaada ma hagaajiyo dooliga keen ahana my sister gabadha soo gashay dhagaysto gabadhaas I love you idin jecla go ahead dhagaysto gabadhaas say u weyso aniga fikirkayga ahaanan ka hadlayaa hore u soco xabiibi horta dhammaan inta na daawanaysa waan salaamayaa faysal wuu ku salaamaya soomaali weyn baa ku salaamaysa haye waxaan rabaa inaad siisaan maama malyuun waqti inaad siisaan thank you because qofka inta booliska uu sareeya ama ha noqoto guri maanta aan tagay gabar baan sug mandeqa waxaa ii suga anigu dad baan u bood way iish aniga shilan soo gelin wax xun wax fiican mooy uu soo fariistay ma jirto qoslaysa wahabi raaxaysanaysa war meeqaas ma taqaani inna lillahi wa inna loogu tago hoos hadii baxseexa gabadhaas dhagaysta gabadhaasaan rabaa inaad dhagaysataan soomaaliyadda iyo siday ugu daminaysa telefoonka ku raaxaysanaysaa ha codkaa kuu fur hore ugal programka hello gabadhaas haa marka aflagaadadana fiiriya gabadhaas waa ka go-ayaa codkaa kuu furan haya hore soco السلام عليكم وعليكم السلام قال كعي مالك maxay tiri wareer bari aflagaadada tan gaalkacyamaa laga keena jes because naagta lagu meesha la isugu tagaayo bay waxay aragtay yaa in sidii la rabo inta la iigu dhaqmay yaa ha tan gaalkacyamaa laga keena ha waa reerbari haye hello baayo ma joogtaa guriga ma la jiifaa dadka u dhaajinaysa hadli jiray Facebook live ku jira codka ma kuu furi karaa codka ma kuu furi karaa dhagaysta gabadhan ha codka kuu fura haye hadal asalaamu calaykum ummadda soomaaliyeed dhammaan waan salaamayaa gaar ahaan walaashay macaan waa ku salaamayaa hano thank you laakiin wallaahi abaa been kuma sheegayo ninkaas markuu soo galay caawata meesha waan ilmeeyey you know 3 casho aan dhaqtar ku jiray ilaahay ha ku caafiyo dhiigaygu u kacay you know waa ogahay waa leesha ku soo wicin ma ii sheegay wallaahi oo billahi tallahi been kuma sheegay carruurtayda kulley waxaan u malaynayaa qof ka mid ah mar anoo aad ku raadinayo ood ku soo celisay way ku sheegeen maamada inaa xanuunsanaa oo dhiig ku jiray isbitaalkay jirtay ugu dhan dhiig blood pressure ku kacay sabab kalena ma ahayn sababta maa milyuun ahayd abaayo ha ooynin xabiibtii haye abaayo macanto ilaahay cadaabka hageeyo madaxa iyo calool ilaahay cabdixakiin ilaahay raxmaanka maya ha habaarin
way habaaraysaa day difaacaysaa may kaamay ismaqalna kubuubin wuxuu ku buubay baala rag kale ee leeyihiin ku buubay gabar xanuunsan waaye depressionay qabtaa soomaalida walaalnimadii xanuunka iskuma jecla miyaa abbaay adiga xanuunsan oo isbitaal agenistiwane u noqotay agenistiwan waaye u noqotay wax u nasteexay maxaa loo waaye oo islaam ah gabadhan wax dhibaata ku dhacday abbaay iyadoo yar dhibaata ku dhacday haddee sheegtay ina gurigeeda inta loogu tago hoos wax loogu sheego miyaa in lala ficiltamo nin rag ah iyo naago iyo gruub dhan iyo magaalo dhan inay hal qof oo islaana oo walaalkood ah waa ogtahay ducada ay kusoo geli jirtay waa ogtahay say u astarnaan jirtay xanuunka depressionka la dhaho dadkan soomaalida ma ay yaqaanaan mana ay badanin hasaabartaan gabadhaan walaasheeda dembiyaa laga galay waxa maanta ay samaynaysana waxaa mas-uul ka ah qof walba oo dhibaateeyey oo raadkagii istaagay especially ninkaas oo wheelchairka ku fadhiyo oo maxaa dhahaayo baalashiisa aan ku fiiri abbay ismaqalna ninkaasayto qof aana khaldamin malaha uu sheegay soo fariistay wuxuu sheega ma jirto already damage is done anagoo dhan soomaali haddaana inta wadnaha fiican damage is done wuu gaaray saa waay sababta asaga ma ahan wuxuu noqday qof walbaba guri dhala ku jira ii sheeg wuxuu ku jiraa guri oo ii sheeg oo dhala ah marka aniga waxaan leeyahay goota hel inta ka dambaysay oo dhan ayagaa ka mas-uul ah dembiga ay samaysana ayagaa qaadanayo oo madaxa uu saaran yahay adigu fiiri waad mahadsantahay horta adigaa xanuunsan ilaahay ha ku caafi blood pressure has ku kicin cabdixakiin anigu waan la hadlay wuxuu dhahay hana anigu adaa mas-uul iga ah warkaaga damba ama waxaaga damba meel damba anigu xiniye rag bay ku fadhidaa daahir calasow xiniyihiisay ku fadhidaa meeshaan laakiin we will see inta la shaqaysa oo maanta ku fiirsanaysa milyan dhibaatadana way sugaysaa anigu fiiri adigu maxaa ka sheegaysaa anigu ama a part of the problem because ma milyan marka ii baahnad anigu waxa inay heerkan gaaraan uma malaynaynin xabibay ku abbaay macaane may soo bandhigi jirin naago oo ilaahay eedisa kuwa ma soo qaban karo kaarna allaha ku rido gabadha waa la caay waa la isugu tagay waxyaalo wadnaheeda uu siin waa inay soo dayso maxaa lahaayo ii sheego oo lagu dhahay habeen imaalin masadaa loo duubaayo haraasamentiyaa lagu sameeyey keligeed iyo ilaahayay noqotay waxaa weeyaan waa la ciilay inta la ciilo iyadii la caayaya waxaa la gaarsiiyey heer xun baa la gaarsiiyey maxaa dhacay qof walba qabriga keligeedaa gelayso qof la gelaayo ma laha laakiin haddaa annaga horta dumar soomaaliyeed haddaan nahay waa isku jijiifaan nimankaana gabadhaan way usoo tisteen waxay ugu soo tisteen sababta ay tahay uga hadlaysa dhibaatada waay oo uga hadlaysa runtii way wada baqaayaan dumar badanaa lasoo wada kufsado dhibaato ku dhacda ayagoo yaryar laakiin gabadhaan hadday sheegtay inta loo imaado culummada ee gurigeeda ugu tagaan may dhahaan sidaan xaalka maahan maxaa loo qarinaa culimada abbaa isku mid ma aha culumay ammaanaysaa culimada Minnesota culimada Minneapolis Minnesota haddaysan arrinkan ayaga midii khamaar soo huwataa culumay difaacdaa waa tii dabagaabka qabi jirtay naagtaani ee khamrada hor ooli jirtay joogto Afrika oo aan la xiriiray oo Yurubtan joogto ayaa raaliska ahayn muslim baan ahay shadu an laa ilaaha illa allah shadu anna muhammad rasuulullah gabadhaanayto faraha laga qaado marka haddii culimada Minnesota Minneapolis anigu waxaan ka sheego waa dambi aysan sheekadan war u haayaan ay xaras gooni ee ugu haayeen because magacyadooda ee soo qaaday oo maxaa la dhahaayo isha especially sheeqan Daesh markii naagta ee masiibada aheedoo meeshaan joogtay ii sheeg Indiano degneed stateka degneed cajalada ay wadaadka ka duubtay asagoo la hadlaayo oo honest iska ah oo iska yara qosqoslaayo oo gabadhii ma garanaysaa oo ma aragtay u warramaayo oo iyadana ee u warramayso qiyaanay hoosta ka wadatay cajalada iyadaa maamilyoon usoo dirta oo waxay dhahday u dir maxaa la dhahaa
ii sheego siida iyadaa ku dhahday maamuliyuna way soo daysay lambar 1 horta wadaadkaas meesha uu carada ka qaaday anaa runta u sheegaayo maanta dhegeyga ugu maqasho ummadda Soomaaliyeed privacyga oo inta yaroo ma garanaysaa buu asagana ka cilbaday gabar walaashiis ah oo magaalada la degan waayo gurigeeda u tagi karay dad u wadan karay waxaan bedel walaale wallahi oo bilaa oo tallaay maamuliyun aniga ma aqaani laakiin dadka garanay maamo dadka soorta maamo sharaf leh maamo oo ma aragtay akhlaaq leh oo shaqaysanaysa oo dadka halbegarayso oo waji leh oo maxaa lahaayo oo business haysatay waa nina wadanka keentay lacagtaasoo intaasoo bahalkaa uga baxday asagoo insurance la'aan ah maxaa la lacagtaa lagu soo jaadgareeyey andeen gabadhii taas waa laga cafiyey tii aan ku keenaaba ku leeyahay boolis ugu wacay screen orderka goosteer oon xasta ka keentay maxaa la dhahaa Afrika ka keentay okay allah problema isugu tagay adiga allah xaalad kuma soo koobi karo laakiin agta hoosteed in la geliyo gabar dumar hooyo maya hadda waa xalinay ninka wuxuu dhahay ana waa rufiyaan qolkeeda haddaad gashaan kulligeen caaya baalahana ka rifay runta barahana maqlaaya aniga madaxaana kaa kaadinaya Columbus aan imaada Minneapolis alla ceeb maaha waa runteeda she's right weyn baatay walaashay she's right qof weyn oo wataasa dumar taasoo kala la dhahaa gabar hooyo dumar ah taasaa la dhahaa laakiin ruufiyaan yaa jika joog ah oo dad dherigood leefleefaysa yaa waa tee waa hano naagtay dherigeeda gurigeeda fadhido warkeedii bay ku hadlaysaa laakiin warka runta ah ama gurigayga hala joogo ama guri kale aan jooga anigu runta wadada ogama leexdo laakiin yaa hano waa naag dherigeed bay leefleefaysay dherigeedii bayna ka hadlaysaa yaa sariirta caawa ay seexanaysa iyo businesska layska meelahan waxa weeye faraa layska wada hayaa laakiin waxaan idiin sheegayaa dumarow yaa hana qalweyn ha gaalkacayay ka timid arbow way tiri waa sheekhaal xuno qashin qabyaalada daabaad leedihin deyni maayo naag walba qabiilkeedaa lagu caynayaa soo qabiilkaad la karkartaan sheekhaal xuno qashina ayadoo ah oon lugtana ahayn faraskana ahayn bay waxay rabtaa aniga inay madax cagiga saarto oo ay tiraahdo cajaladahay ii soo dirtay oo dhanna anaa idiin soo wada diraya jaladaheedii oo dhanna dadka isoo qaba leh I don't know waxa ku dhacay meeshii dadka laga soo qaban jiray malahan kulligiin anaaba idin soo wada qabqaban lahaaba oo diyaar u ahaan lahaaba inaa idin soo qabqabto meeda okay yaa waay waxaas yaa ma aqaan qof baa isoo dalbaday midhaa qof xun haddaad noqoto waa ku tuurayaa soo kumaba aqaane soo waxaan idiin sheegayaa Mustafa Mire ma aqaano Yaasir Milyuun Cumar haye soo dhawow qabso Milyuun soo waxaan rabaa inaan idiin sheego gabdhaha Soomaaliyeedo inaad markaad aragtaan gabar Soomaaliyeed ma qabsamaysid maxaa kugu dhacay okay waa ku tuurayaa markaad aragtid gabar Soomaaliyeed sug dadka aan fiiriyo gabar Soomaaliyeed oo la dulmaayo markaad aragtid ha ku diganin hana ku daadsanin hana ku farxin soo anugu gabdhaha Soomaaliyeed waad ogtihiin inaan idiin wada hiiliyo kow midii shalay lahayd ninkayga oo la fuushan yahay